بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. raalli noqo waxa laga yaabaa gobolka nuxwaaya inuu ka yara neeraado kuwii hore aan inta badan soo duubi jiray. waxaan isku day jiray maqaaladu inaan 7 daqiiqo wixii ka hooseeya ilaa 10 daqiiqo wixii ka hooseeya ka dhigi, laakiin wax yar u yara naafas suuragala sababtoo ah ma la kala dheeyo sida wata marka dulqaad wacan insha Allah. mawduuca maanta waxaan ku soo hadal qaadno haddii waa la yiraahdo sidii loo hormarin lahaa noona wanaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada qof ee isla nool ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad isugu daray. shukaansiga iyo dadka kale banaanka oo iska howlo kale marka banaanka la jiro, laakiin gudaha marka la isugu yimaado nolol adag oo dhib badan ayay maraan dad tiro badan. nolol macaan oo deganaan ay ku dheehanto tii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagaleyna dadka qaarkiis Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu fududeeyay. laakiin waxaa muuqataa in aqoon badan oo aan loo lahayn dhankaasi guurka iyo shakhsiyadda bini aadamka siday u shaqayso inay horseedayso maalin waliba in labada qof ay kala kalsoonin baxaan ama sidii loo baahnaa aynan uga helin faa'iidooyinkii looga baahnaa guurka asalkiisii. aan gudagalno marka waxaan rabaa in aan idinla wadaago daraasooyin kala duwan oo lagu sameeyey bal sida ugu sahlan ama ugu fiican oo ay tahay in guurka lagu horumariyo ama labada qof ay muxuu ahaa ii sheeg inta badan ay isku imaanayaan. qodobka koowaad ee muhiimka ee qof waliba xaas lahi wiilka iyo gabadha labadooda ay muhiima inay ku xisaabtaan waxaa ka mid ah qof kasta waa inuu qofka kale u aqbalaa sida uu yahay. adigu qofkan maadan abuuran isagoo gaara 20 jira ayaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala caadil sunnada sidaa darteed waa inaa u aqbashaa horta qofka siduu Ilaahay u abuuray iyo korriinkiisii iyo waxyaabihi. waxaad ogaanaysaa midda kale qofkan kula nool waxaa saameyn weyn ku leh korriinkiisii hore, noloshiisii hore, qofkii uu soo maray. masalan gabadhan haddii hore loo soo guursaday oo kale Ilaahay caalam sunkiin daray casharo maran ayay haystaa, casharada saameynay ku leeyihiin. ninkan sidoo kale hadduu hore usoo guursaday xaasas kale oo kale cashara ayuu haystaa. xataa haddoona soo guursanin noloshii uu soo qoray ayaa qayb weyn ka ah noloshiisa. marka waxyaabaha u baahan tahay waxaa ka mid ah inaad fahamtid qofkaasi horta inuu yahay qof dhammaystiran oo ku yimid isaga oo dhammaystiran. adiguna waxyaabaha aad ka bedeli kartid almost waxyaaba yar weeye. qodobka laakiin aad ku xisaabtamaysid aadka muhiimka oo aqbalaad ah waxa weeye jooji dhaleecaynta joogtada ah. waxyaabaha ay maseedo waxaa ka mid ah qofka inuu difaac siiyo. qofkan ma xalin kartid mashaakilka haysta, laakiin talooyinaad siin kartaa, waad u fududayn kartaa, waad hagi kartaa. waxyaabaha kale muhiimka ah waxaa ka mid ah labada qof ee isqaba waa inay fahmaan in problemka iyo mashaakilka nolosha ku dhacaya ee labadooda dhacaya maalin walba taagtaaga iyaga ka dhexeeya inay tahay dabeecadii caadiga ahayd ee bini aadamku inuu banaayay. wax iyaga gaabba maaha, wax balaayacib ka soo dhacday maaha, nasiib darre iyaga haystana maaha. marka haddii ay fahmaan in mashaakilku uu yahay natural muxuu ahaa part of the life hadduu yahay wax badan ayay muxuu ahaa u dulqaadan karaan. adiga odaga ah iyo adiga muxuu ahaa xaajiyada waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah aqbal xaaladda uu ku jiro dhigaan, aqbal duruuftiisa mar waliba. caqliyadiisa haddii hooseyska oo adiguna ay tahay kale waa inaad aqbashaa sababtoo carabka isu dhigto. haddii gabadhaadii way fahmi leedahay oo wax kasta aad u sheegtay mar walba ay tahay qof disconnected oo inta adiga aan joogtay isku day inaad soo gaadhid, laakiin marna ma sixi kartid. do not fix the problem. ma xalin kartid because haddaad damacayna xalisid dee waxaa imaanaya inaad jebisid oo aad qofkiina kala tagtaan ama siyaabo kale aad muxuu ahaa xaaladdu ay sii kumaato. qodobka labaad qof kasta oo ku xisaabtan waxaa ka mid ah qof waliba qofka kale ha u muujiyo appreciation, qiimeyn ha u muujiyo, tixgelin iyo qofkan in uu raalli ka yahay waxyaabaha uu samaynayo. haba yaraan haddii doonaan, haba yaraan inaad la anshuursan tahay, inaad u bogtay, inay cajiib tahay. tusaale masalan afraadka social media ba jirta odaga ayuu waxaa arag xaflad ka qayb qaatay oo la joogo muxuu ahaa dad badan oo akhyaar sawiradiisii sida gaar ah maadaama odaga uu yahay inaad tidhaahdid maanta aad baa u qurux badnayd maasha allah waad ka muuqata ragga kale midna laga yaabo inay u samaynayso oo isagu niyadiisa taa cagsigeeda haddii aad samaysa ka waran oo aad tidhaahdid gabadhii ku fadhido geesta fadhida maxay ahayd taas caadaman siday ku fiirinaysa. waxaa suuragal ah noloshii uu ku jiray maanta oo mashquulka ahayd oo wargii caawina ka hayn batii aad fadhiday inaad adiga u soo jeedisay. marka uu kaa qaadanaya aragti aad qaldan oo ah inaad tahay qof maanta dadka mashquulsan dhanka negativeka ah. mar walba horta appreciation samey, jooji dhaleecaynta qofkaas aa u samaynaysa. mar waliba daacadnimada waa muhiim. complaintka iyo cabashooyinka mararka qaarkood waa loo baahan qofka kale ugu caban laakiin dhaleecayn maya. qofka waad ka caban kartaa behaviorkiisa iyo dhaqankiisa laakiin qofka isaga ma dhaleecin kartid. marka waa inay u kala
soocan yihiin qofka iyo ficilka uu sameyn. haddii gabadha ay samayso wax xun ama wax qaldan, waxa qaldan ayaad nacabtaa, laakiin gabadha ma aha. haddii odagaa ku aragtid ficil qaldan, odagaa ma aha wax xun ee wax qaldan ficilkii. marka inta badan looga kala socnay innaga afcaasha iyo ashhaasta way soo keeni jiraan, waana mashaakil badan ay ka yimaada. sababtoo ah waxaad dareemaysaa qofku inuu ilaabayo qofkii wanaagiisii iyo wixii kaloo dhan inuu ilaabayo. walidaalika diinteena islaamku dumarka marka la yidhi naarta ayaad u badan tihiin, waxyaabihii la sheegay waxaa ka mid ahayd inay ilaabayaan wax alla wixii hore loo sameeyo o dhan. oo ninku marka u dambeeya qalad yaruu sameeyo la yidhahdo weligaa abadin waxaynu waan sameyn, weligaa abadin feenka ma aragtin oo kale. waxyaabaha la diiday waxyaabahaasaa ka mid ah. always inaad appreciation samaysid oo aad tixgelin samaysid oo aad u bogtid qofkaasi ammaana aad ugu dartid oo kale. waxa xun qofka ma aha ee waxa xun waxa weeye waxa uu sameeyey. number 3 qodobka kale muhiimka ah, xiriirka aad qofkaas la sameynaysa xiriir daacad ah. nifaaq uu fiican qofka inuu integrity leeyahay fiican. integrity waxa la yiraahdaa qofka waxa uu leeyahay iyo waxa uu sameeyo waa inay isleeyihiin. haddii ay kala duwan yihiin waxaa imaanaya qofka in la qabto oo kadibna wax kastoo dhaho aan waxba laga dhageysan oo kale. ilaahay idinkiis nin waxaan xasuustaa saaxiibkayga oo mar walba dhihi jiray waxaa soo sameynay ilaahay idinkiis. dadkii meesha jooga markii dambe ilaahay idinkiis waxayba u fahmayba ninkan inuu farsamo u fakaday. marka markastoo ilaahay idinkiis uu dhaho waxaad dhihi jirtay ilaahay idinkiis abeeyay waxaad noo sheegtaa inaad waxa sameeyay inaad sameeyay. marka waa level oo adag in la gaaro marka in qofku ilaa heerkaasi integrity-giisa uu dhiito. daraasooyinka qaar waxyaabaha ay sheegayaan waxaa ka mid ah xiriirka lamaanaha ka dhexdhaca ee labada qof ee isqabta. hal daraasa ayaa waxay sheegaysaa in ilaa 10% xiriirada ka dhexdhaca ragga iyo dumarka isqabo intooda badan inuu xogaa yaro ay ku jirto wuxuu hagardaama, laakiin waa 10% 10% kaliya inay hagardaama ku jirto ama diyaar ay jirto ama been la isu sheegay inta badan. oo gabadha laga yaabo inay ugu sheegto waxaan sax ahayn ama odayga laga yaabo inuu ku sheego waxaan sax ahayn, laakiin bini'aadana la yiraahdo so 10% haddii ay saan noqoto maxaa adiga ah 90%-gii kale maxaadan muxuu ahaa ugu sareysa. beenka dee guud ahaan inuu dad muslimiin maadaama aan nahay inoogu fiicno, laakiin waa qasab qofka mararka qaarkood inuu dee xeeladaysto oo si uu kaaga fikro. arrinta afraad ee muhiimkaad ku dadaalaysid waxaa ka mid ah haddiiba aad xiriir ilaahi subxaana watacaala kuu fududeeyo guud u jirtid, mar waliba qofka firqiga idin dhexeeya oo differencega labadeeda idin dhexeeya daraasad ku sameeya. waxa idin dhexeeya waa maxay? ma xagga fahamka ma xagga muxuu ahaa ishan aragti kale iyo arrin kale maxaa idin dhexeeya labadeeda? differencegaas marka aad baartid differencega inaa intaa kala jebisay aad tiraahdo qaybtana iyada wey qaybtana aniga wey ma aha wax raadi. waa maxay marka mar waliba differencega markaad ogaatid waxaad ku kala duwantihiin aragti ahaan, waxaad ku kala duwantihiin ficil ahaan, waxaad ku kala duwantihiin mustaqbalkii iyo sida adiga aad u aragtid waad ka shaqeynaysaa. qofka aad ku caawinaysaa in warkaasi iyo waxa uu aaminsan yahay uu isagu aaminsan yahay isaguna ay sahla tahay, laakiin inaad ka dhaadhicisay inay si kala jirto oo the other side inaad tustid mar walba. ma ogtahay qofka dhinacan waa arkaa laakiin dhinaca kale waa aduu shaqo kuu taalo weeye marka inaad tustid dhinacii kale. waxyaabaha daraasooyinka ay sheegaya waxaa ka mid ah waa inaad horta assume garaysaa in niyadda waa inaad dhishtaa qofkan kula jira inuu leeyahay position, boos ayuu taagaya, gabuu leeyahay, waxbuu ka hadlayaa, ma wada qaldana 100%. waxyaabahaasi waa inaad u qirtaa marka oo aad tiraahdaa waa sax. laakiin haddii doodaa ay noqoto qofkan inaad soo saartid qeybihiisa, qofkan inaad soo saartid sida uu ku qaldan yahay, dee qofkiina wuxuu sii gelayaa difaaciisii. difaac kulaba oo galana weerarkaagu waxa uu sheegay. marka weerarna iyo difaac sheekadii Soomaalideena ayadoo nin inaagas qaba cawna ma aha heshiisna ma aha oo kale yeena kugu sifood waa la soo qabanaya. laakiin mar waliba waxaad ku dadaashaa inaad cawl ahaan oo dee wixii laga wada hadlo maanta in la isku dhaco way dhacaysaa, laakiin in la kala maqnaado oo shib la kala yiraahdo oo la kala baanbo oo la kala barbaro xad ma barwayba. waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah oo marka aad qofka differencegiisa ogaad ha ku boodin durbaba inaad sheegto qofka waxa uu ku qalnay fiirigayso. waxyaabaha ku daltanta waxaa ka mid ah 1 2 3 4 5 haddii inaad tirid don't judge them, ha xukumin qofka isaga, because judgment-igu waxay keenaysaa qofkii inuu difaacaasi galo. maxaad samaynaysaa marka? waxaad samaynaysaa inaad firqiga fahamtid iyo kala duwanaanshahan xagga aragtida ama nooc kasta aado. arrintaas waxaa aad iyo aad ugu fiican ninka la Chris Voss waa nin wadaxaajood ku geli jiray hay'adda Mareykanka ee dababaarista FBI-da. buug cajiib ayuu leeyahay oo la yiraahdo Never Split the Difference. weligaa allaha ha kala jebinin firqiga idin dhexeeya adiga iyo qolada la hadlaysa.
ووضع حاجات اللي جرتها hostage سالة محابيس أو the international audience الله ليس ضد كان أي الله هيستوى مركز أنت تتوقع ضد كاس في MSC مدخل فرشة الرواية يا وكل إذا دنيا هذا هو مركز difference جديد بحياة أو ضد كان يعرف طيب ولا عير رواية أما ضد كان يربيني كلا أو إنه حرد ضد كان ينام بس so that difference كلام السوري كرتيد أو إذا أنت كلا تيجي بس بيكتولي وحياة مركز تقول تلني وحكمه إنه هاي مهم إلى الطفل نجي سنتك بوسيشن وتاريخ هنا أبوكرت وأتريد بوسيشن كايسنا أو نسينا طفل إلى موت وحياة قلت لي وحكم إذا مرك طفل مرك نجي سنت كده بوسيشن وجوه يوحوا عن السياحة إنه بس وكوبت أو بصراحة أتريد ذوق سفي عبا جوفة وحياة هذا كان ليس حكم إذا إلى بستة ساس إن صوت أو حاصل ساس صوص الأسماء ها وصح يقولي markuu baleeyahay labadaas eray clear oo qofka inuu dabaynta ku yiraahdo yes that's correct jumladaas waxay tahay sirta dhan ee gusha mar bacda qofka meesha isla gaarta macnaheedu waxa weeye qofkii wuxuu fahmay kana fahamsan tahay wuxuu fahmay ila dhinaciisa ka imaanayso wuxuu fahmay inaad ahayn qof ego centric oo isaga iska hadlaya kadib wixii ka dambeeyana way ku fududahay inaad muxuu wada xajoolkaaga sii wadatid wax badanna aad qabsid waxyaalaha muhiimka ah waxa weeye gabadhaada ama odagaaga gaarsiin kartaa in qof yidhaahdo that's right arrintaas waa sax haddaad ii fahamtay aniga waxa weeye uu kaandiraya waxa weeye mar walba telefoonka iga dhegeysta aniga waxa igu kaandiraya waxa weeye markaa qolada laba waxa waaye waa nihamsa aniga waxyaalaha waa iska baway yacni qofkii mar alla markaad dhegeysatid oo aad fahamtid waxyaalaha uu fududaanaya waxaa ka mid ah isagina inuu fahmo inaad fahamtay walidaalika wadaxaajoodka markaasi aad iyo aad u fududaato qodobka ugu dambeeya ee aadka muhiimka waa waxaa ka mid ah qofka walaalka ama walaasha ee ilaahay isugu kiin daray ku taageer ahdaafta ay leedahay ahdaafta jirto qofkan ahdaafta ay leedahay waxbay rabtaa so ahdaaftaas ay leedahay waa maxay cidna marka guurkii of show okay qof waliba dhinacaas aan ka soo duulno qof waliba wuxuu rabaa inuu guur jiro laakiin sibay u rabtaa sibay u rabaa isaguna okay sidaas ugu rabo iyo sida isagoo muxuu ahaa ayada u rabtaa isaga ugu rabo qof kasta qofka kale waa inuu fahmaa muxuu ahaa ninka caanka ee buugaagta jacaylka iyo waxyaabahaasi ka baxo oo aad iyo aad webs waa kastoo la yidhahdo arthur arrow ayaa waxa uu leeyahay arrinta muhiimka waxa weeye oo jacaylka labada qof la isku sii wadi karo waa capitalization weeye capitalizationka eriga xarfaha waaweynaa kama wada isaga laakiin wuxuu ka wadaa qof kasta qofka kale inuu uga faa'iidaysto guulaha yaryar u gaaro haddii xaajidaada guula yarar ay gaarto masalan inaad capitalize ka faa'iidaysto yes maasha allah howl weyn baad qabatay shaqada qabatay cajiib bay ahayd iyaduna sidoo kale inay tiraahdo hawsha aad qabatay howl caadi ma ahayn waad iga fiican tahay marbo isxinaabna adiga iisoo weydan iyo wax la mid ah so celebration noocaas oo kale qofba qofka kale wuxuu u sahlayaa in uu fahmo kadibna uu ogaado qofkaasi inuu ka fiican yahay muxuu ahaa isaga naftiisii marka ilaahi subxaana watacaala ay noo fududeeyo waxaad ogaanaysaan cilaaqada guurku uma sahlana sida dadka badan ay u qaataan just maaha ragkaan way kan lagu fidinayo qof weyn oo nool oo 20 jir oo adigoo kale ayaa ilaahi subxaana watacaala xirin dhexdeed laakiin inaga ragga arrinta muhiimka ay noo taalo ka mid ah oo inta badan laga yaabo inaan ka gaarino waashiruhunna bilmacruuf okay waashiruhunna bilmacruuf kula dhaqma wanaagaasi waxaa lama guraan inuu ka mid yahay dulqaara waxaa lama guraan inuu ka mid yahay caqli celin waxaa lama guraan inuu ka mid yahay qofkii in la tuso sida sawaabka ugu jiro dumarka oo walaalaheenna iyadana waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah waa inay bartaan dadkooda waa inay bartaan muxuu ahaa odayaashooda waa inay bartaan muxuu ahaa iisheeg wiilashan ay isla nool yihiin dhalinyarada hadda casriga ee qarniga ku ilaatanaada jooga sida aabbahaa loo soo dhaqi jira ama awaa u dhaqmi jira ma u dhaqmaya qarniga ku ilaatanaada ku jira waa qof modern ah qof waxyaaba badan aaminsan weeye nolol marka waxaa jirta inherent ku ah oo noloshiisii ka mid tahay masalan haddaa u diidid oo kale telefoon lagu isticmaalo oo aad tiraahdo telefoon uguma arki karo haddaad tiraahdo ama markastuu yimaado telefoonkiisa aad rabtid inaad baartid oo tiraahdo keen aan eega wax walba oo kale waxyaabaha inta badan la iskula dhacay ay ka mid tahay qofkii telefoonka ma goyn kartid marka muxuu noqonayaa qofkii inuu difaac galo masajidii soo tirtiro xaafadii markuu imaanayo isagoo dhan buu yimaado isagoo difaac ku jira which is not good xiriirkiina ma fiicin ilaahi subxana watacaala waxaan ka baryaa inuu noo fududeeyo oo dhaha aan ku jirno guurkuna si uu u guulaysto mar waliba waxaad ogaanaysaa labada qof inuu ku wada dhisaado qasab ah qof baa uu socon karaa qof baa uu tiirsanaan karaa qof walba oo ku dadaal kii lagu jiifay kii lagu fakarayay inaa adugu tahay ilaahi subxaana watacaala laa yakfa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa waxba kama qarsoona wuu og yahay haddii ay nacdo qofka lagu socday inaa adiga tahay waxaad ogaanaysaa waxaa lagugu bedeli doonaa wax kale oo weyn oo ay ka mid tahay owlaad fiican ilaahay uu ku siiyo xaajidaadina baari ay kuu noqoto
ama xaajigaaga bandiga uu noqdo maalinta qiyaamada de creditkaagii maadaama deposit tiro badan aad ku samaystay accountkaagii waxaan aaminsanahay insha allah inuu ilaahi subxaana watacaala kugu dhigi doono